maxaa iiga baxay? Cabdi Ciise Cajuun ayaan daawaday wareysi uu bixiyay. Aan idinsoo koobi qodobka sawirada la faafiyay wuxuu uu si dadban ugu tiirinayaa in Gmail-kiisa iyo moobilkiisa muddo 3 beri ah si ay dhiidu ka haysatay oo la masaxay. Qodobka guurka meeshaba wuu ka saaray sida uu u fasirayo ereyga relationship oo uu saaxiibtinimo ula jeedo isagu laakiin micno guur yeelan kara. 21,000 ee lagu eedeeyay ayuu ka gaabsaday wuxuuna ku xidhay qodob in uusan Safiye afkeeda ka haynin. Qodobka 2,000 ee la yiri bil walba way u diri jirtay wuxuu kaga jawaabay in dad xiriir ka dhaxeeyay wax walba ay isku diri karaan ha ka badnaato amba ha ka yaraatee laakiin ay dadku goosteen cadadka ah 2,000. Dhanka safarkiisa ayuu sheegay in uu 22 beri ka maqnaa Hargeysa sheekadana la wadwaday 6 beri taas oo noqonaysa 16 beri kadib safarkiisa in la faafiyay sawirada xeelad baa ku jiri karta safarkan. Qodobka ugu dambeeyay ee ugu muhiimsan ayaa ah in cadaynta kaliya ee uu isku difaacayo in uusan kiiskan gelin ayaa ah in sawirada la faafiyay uu kula jiro Safiyo. Waa dood jaban marka loo eego dhibanaha oo ah qof dumar ah waana mid kale oo iyana noqon karta kaarto bax lagu sii talagalay. Waxaan xogta ku hayaa in Cabdi hadda ku yimi dalabka qoyskiisa, cuqaashiisa iyo xitaa isimkiisa.